Serere farmo fardaxad mursata sulgambar waxay ahaayeen dad wadaniyada jecel ayaga is jecel qabiil aan aqoonin kii ka soo horbaxa oo walaalkiisa waa la soo baxa dagaalada yaa dhacay qabiilada loo kala baxay Soomaalidii macnaha awal way isku dhex jirtay macnaha qabiil ma dhex oolin hal dawladay wada fiirsanayeen dawladii markay burburtay dadkii macnaha intii ay deegaanka ay ugu qof walba deegaankeeda ku badnaay ku ekaatay afka iyo dhaqanka waa lama huraan meel kastoo aad joogto iyo si kastood u nooshahay ummad waliba waxaa lagu gartaa afkeeda waxayna ku faantaa dhaqankeeda sidaan ka warqabno waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxa ay carruurtooda kula dadaalaan barista diinta Islaamka asagoo macallin dalkii jooga uu carruurta Quraanka ku baro hab online ah بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون halka waalidiinta qaarna ay u suurto gasho in macallin la jooga uu ubadkooda Quraanka u meeriyo Ar-Rahmaani Ar-Rahiimi Ar-Rahmaani Ar-Rahiimi Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu haddaba sidaasi si la mid ah waalidiinta xoogga ma u saaraan in ubadkooda qurbaha ku nool ay afkii hooyo baraan mase lagu baraarugsan yahay baahidaas inay ka jirto qurbaha magacaygu waa Ismaal Daamey waxaan ahay filim sameeye degan dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Germersheim
waa maxay afka iyo fanka xiriirka ka dhexeeya ما شاء الله وواحد معقول واحد ويدينيسو وأنا أبغى وليبا إن أرماس الإسويديو حريرك كده هاي وحوي وحصص وحليلا يو يسو ديبيد أن مثلا هذا عندي أدوك واعز وواعز الكمبيوتر بواحد وحريا مركز بعضه وتجلسها وحي بعض صوب بحيسا وقت وحي بعض بحني yaad kala soo baxaysaa biin baad u samaysanaysaa marka af soomaaliga haddaad u baahato si uuna u lumin waa computerkii hadda aan ka faalloonayo kale waad xariisanaysaa maxaad ku xariisanaysaa af soomaaliga macnaheedu waxaa weye waad ku heesaysaa tareerin baad ku samaynaysaa luqadihii oo dhan baad ka helaysaa marka wax kastood u baahato af soomaali ah ama gabayadaad ka helaysaa ama heesaha aniga masalan kasoo qaad hadda soomaalida inta badan midabada waxay yaqaanaan guduud cagaar buluug adiga xitaa inaad maqlaa laga yaabaa gabayada sayidkay ku jireen kuman cawlan kuman caawila adigu waa haddaad kuman casa waka marka waxaa weye waa computer meel noo yaalla annaga hadda markay af soomaaliga isku qabsado gabayadii aan soo qaataa raago ugaas iyo sayidka iyo cali dhoofi ayaad ka dhex helaysaa marka waxaaye waa computerkeeni arrintaa waxaa u sababa waddanka burburkiisa u sababa sababtoo ah meel ay ku jihaysan yihiin ma laha matalan kasoo qaad hadda ka hor waxaa la kulmay wiil soomaaliyeed waa nin ilaaha siiyey cimrigaas iyo caafimaadkaas deg deg uu koray hadduu isu agfariisto da-da waxaad moodaa inuu ila egyahay waana 25 waana sheekaysto markaa wuxuu ka sheekeynayaa dagaaladii wixii markii dambe anigu waxaan iri meesha ceelgaab la yidhaahdo iyo villa courage del sud ya iyo shareema africa iyo mataqaanaa adigu meelihii baan ugu sheekeeyay aniga aan hore u aqaan markaasuu waayo buiya markii dambe waxaa iri mataqaanaa meel la yidhaahdo markaan saa u marayno courage del sud markii dambe sugbal u kaada adeer macnihii waa igu adag yihiin waxaana kuma dhihi kara waxaasoo dhan ma aqaan dib baan u fiiriyey waxaa yidhi ceelgaabka taqaan ceelgaabka ma aqaan yidhi xamrun ku dhashay marka oo xaggee ka timada ayro xaggee ku kortay markaasuu yidhi wallaahi 5 sano waxaan joogay soomaaliya 5 sanana waxaan joogay ethiopia 10 sanana waxaan joogay south africa intana waxaan joogaa 10 sano marka meel aan ku koray ma aqaan marka dee af soomaaligiisuu ku baranaya sidee loo bari karaa caruurta qurbaha ku nool afka soomaaliga waa su-aal ahamiyadeeda leh oona loo baahan yahay aniga ka fikrad ahaan waxaan qabaa qaabka ama nidaamka loo bari karo ilmaha qurbaha ku nool afka soomaaliga 3 arrimood in la helo tan ugu horeyso jaaliyad ay soomaalida ka midaysan tahay markaan ku leeyahay jaaliyadda waa in la helaa masjid ama dugsi qur-aan lagu barto ama iskuul afka soomaaliga loogu dhigo sida aad ka warhaysid ama aan ka warhayno caruurta subaxdii iskuul ay aadaan afka khalaad iyo dhaqamada dalka ay ku noolina la baraa sidaas darteed waa adag tahay 100% in afka soomaaliga la xifdiyo haddii aan la helin iskuul soomaali ama dugsi qur-aan ah taas midee noqonay tan labaadna waxay noqon kartaa in la helo hooyo dul dhabar adeegta dulqaadkeedana badan yahay ama siday reer xamarta dhan hooyo ilmaheeda ku xaal xun og asalkeeda meeshay ka imaaday inay soomaali tahay luuqadeedana aada u jecel markaasay ilmaha bari kartaa markaan hooyo ku leeyahay waxaa waaye guri walba hooya asal leh iidana aasaas u ah dabcan aabaha ma ka marno hooyada waa inuu caabiyaa mathalan subaxdii markii iskoolka la geenayo ilmaha ama aabaha ageeyo ama hooyada ha geyso intay wadada sii socdaan ilmaha afka soomaaliga in lagula hadlaa loo baahan yahay xilligii lasoo celinayo sidoo kale afka soomaaliga lagula sheekaysto sidaa ogtahay wadamadan ku noolnahay sida jarmalka oo kale ilmaha
odayga shaquu leeyahay habarta shaqay leedahay haddana ilmaha waqtiyaa la siiyaa waqtiyaa lala qaataa waa lala sheekaystaa annagana waxaa waajib nagu ilmeyn inaan waqti siino aan la sheekaysano midda kale saddexaad waxay tahay ilmaha naftirkooda dalkan ku dhashay ama ku barbaari in lagu xiro kuwa dalka ku nool sida ayeeyada abkooga eedada abtiga dadkaas oo dhan lala hadashiyo si ay ugu beermato caruurtan inay dad leeyihiin wadan Soomaaliya la dhaho ay leeyihiin luqadna ay leeyihiin oroojinkooda danban u Soomaaliya intaas waa lagu ilaalin karaa midda kale afraad lagu ilaalin karo waxay tahay in ay iska kaashtaan hooyada iyo aabaha aabaha kaalin uu leeyahay door uu leeyahay doorkiisa inuu qaato hooyadana door ay leedahay doorkeeda inay qaadato haddii la helo hooyo sawarkeeda badan yahay dulqaadkeeda badan yahay gurigeedna sida loo ilaaliyo taqaano boqolkiiba 80 waxaan dhihi karaa ilmaha afka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo aadaabtaba waa la bari karaa waana lagu ilaalin karaa ilmaha dalka ku nool afku waxay u bartaan si dabiici ah maadaama bulshada ku hareeraysan ay Soomaali tahay balse halkan waxaa jira afaf kale oo ilmaha asaagooda ay ku hadlaan amaba iskuulka lagu barto marka sidee caruurta loo dareensiin karaa in afkooda hooyo uu ka horeeyo kan qalaad taas marka hore waxay baka falantaa hooyadii mar walba hooyada markaan ku dhahay ani ana mas'uuliyad ugu horeyso hooyaan saaraa hooyo aasaaska guriga way haddii wax halaabaan dhankeeda ka halaabeen haddii wax suubsamaan dhankeeda ka suubsamaan marka hore hooyada sababtoo ah aabaha inta badan guriga waa ka maqan yahay shaqo uu jiraa hoola kale uu ku maqan yahay ilmaha iyo hooyada way isdhex joogaan sidaa ogtahane sida caadiga ee dalkan caruurta waxaa loo shidaa kartoon filan kartoonkan wuxuu ku hadlaa afka dalka ama af ingiriisi inta badan iskuulkan waxay war la soo qaateen asxaabtooda guriga markay joogaan kartoonkaas ay fiirsanayaan dhigood inta badan hadalladaasaa ku dhacayo aabihii waxaa laga yaabaa maanta oo dhan banaanka ama shaqinta habeenkii intuu inuu iska seexdo stress awgeed abartiina hoolaha guriga iyo wixii ka bataada iyadoo dadka inay waqti weyn loo silmay meesha waxaa dhuma marka afka Soomaaliga laakiin waxaa arkay dalal badan oo ku nool dalkan community leh jaaliyad leh sida Turkiga jinsiyad ugu badan way dalkan ku nool waxaa arkay ninka Turkiga ama wiilka ama gabadha kuwa Istanbul jooga waa ka warbadan yihiin luqadooda dhaqanka xataa cuntadii dalka la baro wadaniyada iska dhaaf luqada marka hore hooyada iyo aabaha waa inay ku weynaataa marka hore wadaniyada Soomaalinimada luqada balaaqadeeda quruxdeeda iyo afkeeda Soomaaliya iyadoo inay ku faantaa si ay ilmihiina luqada u jeclaadaan intaas lagu badbaadin karaa qolaba calankii duwa ayno inaga kani waa ciirko kale aan caanalahayn shaqay xidigahay cadiwa noociisa mide xaaleedna sidee uu culus yahay qof hadda af Soomaali oo macallin af Soomaalina oo iskuul ka dhigan waan u baahnanahay haddii aan helayno laakiin meelahan ka jiro wax af Soomaali dhigaayo oo macnaha iskuuladii ka shaqeynayo af Soomaali macnaha maadada af Soomaaliga maadada diini oo kale qofka markuu af Soomaali dhigo maadada diiniga soo galaysa meeshii macnaha akhlaaqdi waxa soo galayso waxyaabo badan oo maaragtay kultuurahan aan u leenahay oo dhaqan u leenahay oo macnaha uga sheekeyn lahaa ma haysana laakiin marka moose guri markii la joogo ilmaha Soomaaliga ku sheekaysiin oo waqti ma loo wada qaataa guri markii la joogo inta badan ilmaha af Soomaaliga horta way ku dhasheen waana lagu hadlaa haddii macnaha lagu hadli waayo af Soomaali oo luqadda ay wadankan oo Jarmalka kale aan iskoolka laga siiyo anagan aan guri uga hadalno
soomaaliga yaqiina xataa wuu ka lumaa marka si aysan af soomaaliga iyo yaqiina uusan ugu dhumin waxaan kula hadalnaa afkii hooyo oo luuqada ahayd aan kula hadalnaa mar walba anagoo yani maaragtay awoodna inaan tan kale xoogay aan kula hadalno haddana tii ay u dhasheen inaysan ka tegin aan kula hadalnaa marka ilmaha soomaalida dhibaatada haysta waxa waaye qaarka iskoolkii hooyadii iskoolkaa loo dira aabe iskoolaa loo dira aabahina iskoolow aada ayagana iskoolay aadaya marka markii laga wada yimaado iskoolka guriga lagu yimaado waxaa dhacaysa in layskula hadlo luuqadii wadanka ama ingiriis ha ahaato ama jarmal ha ahaato ama faransiis ha noqoto ama ha noqoto swedish marka qof walba meeshay joogto haddii ay ilmaha ay kula hadasho luuqadii oo ay macnaha ay dareensiiso inay jecel yihiin luuqadooda hooyo oo waalidka jaceylka ilmaha uu tusiyo xoogay macnaha inta yaqiinina kama numayso kuwa aan aqaanina inay qabtaan ay u badan tahay marka dadka Soomaaliyeed waxaan kula tali lahay inay ilmaha kula hadlaan luuqadoodii waayo birka maal hadii wadankii la geeyo macnaha unga luuqadu oo barta ama wadankii uu yahay ayuu naqana marka si uu toysin ay u heestaan tii ay kaleeto oo yani maaragtay aysan u dhalanna yani ay u heestaan labadaba isku heestaan qofkan waxa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynan ku qoslin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno eray cusub inaynu barro jumlad inaynu barro afafku luqadu waa waxyaabaha ugu weyn ee qofka bini'aadamka nicmo ee Ilaahay siiyay aadanahana waa wixii Ilaahay ku karaameeyay nabi aadam maxaa lagu karaameeyay wa'allama aadama al-asmaa kullaha intu malaa'ikta kaga mudnaaday maxay ahayd tanbay luqadu waxay dhahdaan waa nicmooyinka ugu waaweyn ee bini'aadam Ilaahay siiyay waxaad qiyaastaa qof bini'aadama oo afla oo dhagala qiyaas wuxuu dareemayaan ku sheegi karin waxa adigu dareemaysaa aad u sheegi karin waxbaba luqadu waa akbar nicma saadaradeed baa Ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay ar-rahmaanu 'allama al-qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayyan baa Ilaahay yiri 'allamahu al-bayyan عضينتا إلهي بري التعبير عما في النفس لغضه وحي كمت آيات كإلهي لغو قرته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بإلهي لغضه وتواصلك وواحد بن آدم كوكو حريره waxaad doonaysaa waxaad ku sheegi karto waxaad ka fikiraysaa waxaad ku sheegi karto waa waxa la isku fahmo luqadu waa waxa sida dhaqanka iyo aqeedada iyo afkaarta umad leedahay luqadu waa qiimo fanniya waa mut'a fanniya bay leedahay adabkeedu afka hooyo bay yiraahdaan waa afka guriga laga barto markaas aan macallin ku barin waa afka bay yiraahdaan dhaxalka umadileeday sida waa afka sida baa la yiraahdaa hidaha dadku leeyahay waa baadi socda ama waa sumada dad leeyahay sida awgeed ummadda afkeeda weyda dhaqankeedii iyo dadnimadeedii way weyday Soomaaligu waa maxay Soomaaliga Maxamed Saynu qabiil yahay ma Soomaaliga identity-giisa huwiyadiisa ugu weyn ee lagu yaqaan waa afka Soomaaliyeed maalintu afka Soomaaliyeed ilmuhu waayo ma aha Soomaali wuu ka baxay ilmuhu hadduu af Soomaali waayo maxaa diintiisa lagu barayaa qofna af kale kuma dhergo dunida waxay dhaadaan maanta aynu ku noolay dad binaadamku soo afafka u qiimeeyo waxay dhaadaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu qiimaha badan leh oo 35 wadan oo dunida kamida ku yaala jaamacad kasta afkeeday ku dhigtaa 19 wadan ee dunida technology-ga hogaamiya wadan waliba afkiisu ku dhiga سأوجد وحلا هذا أف علمي مجرد ضد كلبا أفكودا علمي كديجا إنه سوى حين مودني إنجليز يقولون إنه علمي هاي أف صومالي يقولون جهلي جهل جوين نجا ما ها أف صومالية جهل جوين نجا
inagaa moodnay markaynu afkeenna luminay inay wax fiican tahay. wax fiican maaha, waa dhaqan xumo halkii u dambaysay, waa caqli liidasho halka ugu dambaysa inaynu afka luminaa. soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin, diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin, naadir mooyaane. waayo af kale qofku kuma dhergo. mahma aan af ingiriisi iyo carabi garanayo waxaan doonayo kuma sheegi karo. soomaali baan waxaan doonayo ku sheegi karaa. ilmaha soomaaliyeed baan waxa madaxayga ka guuxaya u tallaabin karaa, laakiin afafka aan akhriyo uma gudbin karo ilmaha ku kobca waxa aan dareemayo dhan. idan haddaad ilmaha afka ka lumisaan, in badanoo ka mida dhaqankiina waa ka tuurteen, in badanoo ka mida diintiina waa ka tuurteen. laakiin innaga waxaynu haysanaa af soomaali wuu iska baran doonaa haddii alla yidhaahdee. markaasaad waxaad diidaysaa inuu isagoo af soomaali jajaban kugula hadlo, markaasaad adigu af ingiriisi jajaban kula hadlaysaa. racanka maaha, adaa af ingiriisiga jajaban ku hadlaya, isagana waxaad u diidaysaa af soomaali jajaban markuu hadlo aad ku qoslaysaa. maya, ilmahan inaan dhiiri geliyo weeyaan, af soomaaligiisa jajaban inaan soo dhaweeyo weeyaan, inaan wax u biiriyo weeye, inaanan anigu af ingiriisi jajaban kula hadlin weeyaan ilmahayga. haddaad rabto markaa waxaynu nimi meel dagaal uu ka jiro. ninka hindiga ahi markuu waddankiisii joogu dagaalkan ku jiray. hindiya 100 af baa lagaga hadlaa, 100 diimood baa lagu haystaa, 100 dhaqan oo kale nooca la haystaa. saa daraaddeed markuu waddankiisii joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa. siiga ka yimi indiya halkan markuu joogo waa siig, afkiisiina uu ku hadlaya. dabcaabudka jooga indiya ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud, afkiisiina siisiibuu ugu hadlaya. muslimka joogaana afkiisii siisiibuu ugu hadlaya, isagoo 5 qarni jooga. inana kuwaynu keennay baa iminka afka laba garanaynin, iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keennay ayaa waxoogaa ingiriisiyo jajaban garanaya umes. ingiriisigay ku hadlayaanoo dhamme waa tan suuqa. suuqu wax kaga iibsan karaa, kuna warwareegi karaa, laakiin af cilmiyeed maaha, ama af culture xambaarsan maaha. haddii culturally loola hadlo ma fahmayo. marka kiisiina wuu lumiyey, ku kalena ma haysto. in aada u badan soomaalidu af soomaaligaa la liita. umamkuna maadaama caynkaa u arkayaan, af dhintay bay ummadaha qaarkood soo nooleen. yuhuudda ma taqaanaa? dowlad maanta yuhuud la yidhahdo soo ma maqashaan? israa'iil la yidhahdo halkan jirta. af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee waddanka. af cibri ayaa dunida ku hadli jiray, kaasaa inta dib loo nooleeyey maanta takhasusaadka daqiiqee dunida qaar ka mida lagu qoraa. ka mida jaamacaadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala israa'iil, qaar ka mida teknolojiyada badh bay dunida hogaamiyaan iyagoo ku barta maxay? af cibri. af 10 sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigeen af nool. inana mid nooloo hadda dadkii ilaahay joogaan baynu rabnaa inuu dhinto. anana carruurta af ingiriisiga yaqaan insha allah diinta qolada af ingiriisiga ka soo dhegaysanaya ama qolada af carabiga ka soo dhegaysanayaan. saasaad u haysataa. kuwaana wax kama fahmo, markay qoslaan unbuu la qoslaa, laakiin wax kale kama garto. waxa rasmigii markaa wuxuu yahay, war luqada waa dadnimadiinnii. waxaan aad adigu qofkaagan weyne soomaaliya weli xiisaha ugu haysaa ee inaad ku noqoto ugu jeceshay dadka aad afgaranaysaa, cultureka aad garanaysaa, dhaqanka aad fahmaysaa. isagu laakiin midna ma rabo, waayo culturekoodana ma yaqaan, dhaqankoodana ma yaqaan, say u fakerayana waayo afkaa sida. hadduu qofku afka waayo, afkaad si rasmiya u garatay, dhaqankiisa aad baratay. aanin kara in soomaalida ay dalkii ay tagaan hadba dhaqankiisa iska doondoonaan, afkiisana ay jajabsadaan ayagoo ka taga koodii quruxda badnaay iyo dhaqankoodii soo jireenka ahaa. waxaa loo aanin karaa soomaalida waxay ku mashquulsan yihiin wax la yidhaahdo qabyaalad, waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad. dalkii iyo af soomaaligii iyo dhaqankii hadda adin aad baan kaaga macelinayaa. su-aalooyinkaaga waxaa u badan dhaqanka lumayo iyo af soomaaliga lumayo. weliba waxaa iga kaa muuqta inaad wadani tahay. aad baan u xiriiraynaa insha allah. anigu waxaan raadinaya weligii waxaan caan ku ahay facebook ahayaa wadani. bahasha xun ee laysusu dhiibayo
qabyaaladu waa mugtaa sii qabo oo adigu sii wad adna sii wad ayaa u bixiyey adna sii wad marka ilmihii baa lagu korinaya qabyaalad isaga waa loo soo dhiibay ilan isagii markuu sii yar weynaado ilmihii wuu dhiibay ilmahan qabyaaladii sii wadayaan ilmihii ay dhaleen usii dhiibayaan leey sii wad halkaa ka wada naciibkaas jiilka dambe marka sii wad si aan u badbaadin mar walba fikrad baan keennaa annagoo dhalinyaro badan ah waa isu imaanaa si aan ku badbaadin karnaa maanta adigu waxaa tahay nin soo koraya fikirkaagana aada u fiican aada baa horta kaaga maalinaya taas oo ku marka waxaa lagu badbaadin karaa dadkii waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo wax aan loo joogin in af soomaaligii uu lumayo inuu dhaqankii lumayo inuu calankii lumayo wax ku mashquulsan ma arkaysa hay-ada yar yar ayaa jira sida elephant trust ku yiraahdo hadda aan isbarano kale elephant trust daahir calkulmi iyo group badan aan saaxiibanahay oo aada ugu mashquulsan yani badbaadinta ubadka soomaaliyeed iyo dadka dhibaataysan dadkaas oo kale waa jiraan hay-ado kale oo badanaa jiraan isa aqoonin laakiin asiga waa isnaqaanaa sida dadka ay ugu mashquulsan yihiin inay ceelo qodaan dadka taageeraan haddii af soomaaligan ay dhalinyaradu isu kaashan lahayn dhalinyaro badan oo iskaashato guruuba ah oo badbaadinta af soomaaliga iyo dhaqankii ubadka soo koray iyo sii wad waa taqaan sooma qabyaalada sii wad ilmaha markay soo koraan kii kale usii dhiibay adiga sii wad ciddaa iska celi marka sii wadda si aan u joojin oo sii wad ay u noqoto af soomaaliga sii balaaris sii kobci dhalinyaradaas adigu mataqaanaa badbaadin karta da-yarta soo koraysa sababtoo ah af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga la xoojinayo wuxuu la mid yahay wadaniyadda sababtoo nin af soomaaligiisa iyo dhaqankiisa jecel waa nin wadankiisa jecel laakiin nin qabiil jecel waa nin qarnimada kasoo horjeeda haddaad tiraa anu qabiil baan ah qabiil walba meel buu degaa nin walba meeshiisuu degaya wax aad kordhisay male laakiin haddaad kordhiso isku taxluujiso in soomaali aada midayso dhaqankaa laga bilaabi karaa sida ay sheegayso dhaqanka qolooyinkii kale aada xoogaa mataqaana kuwa waxay jecel yihiin saarka kuwa dhaantada kuwa kabeebeyda kuwa mataqaanaa gableeshin barta kuwa waxaasoo dhan waa dhaqan maanta aan dhaqanadii isu geyno oo xaflada aan samaysano qolo walba dhaqankooda ha soo bandhigeen calanka soomaaliya la soo wada qaadanaya ayagoo midaysan qolana af soomaaliya markuu waa badan yahay dadku waxay yidhahdaan af soomaaliga horta waa mid waa run waa mid laakiin kelmada lagu kala duwan yahay jira matalan kudid xagge kutubay ii koro waa af soomaaliga ogoga ii yarkaadi ya isug wixii waa af soomaali un way kala badbedelan yihiin marka tii in lagu tartamo oo lagu xaragoodo oo laisugu faano oo yani dhinacii qabyaaladana lagu baabi'iyo yaa ka wanaagsan qolo walba ay soo bandhigto af soomaaligoodii oo qabyaaladii dhalinyarada cusub aan sheegaya wey maalan hadda af soomaaliga kasoo qaad haddii af soomaaliga hadda heesihii aad sheegaysoo kale hadda dhalinyarada cusub waxba kama sheegayo laakiin ninka u baahdoo kale heestan oo kale sayloo ku yaal badan soo baxaa kalishi seeseeda loo degay sannaad geelo badi dhalay
soomaaliga ku jira ها ya بل ما نفسر قرتا maya anigu fasirayo dhalinyarada haddana daawanayso weliba dadkii hore maaha dhalinyarada hadda daawanayso heeska ereyadaas ha dhuuxeen weliba homepagekaaga meesha aad leedahay jawaabaha ha kusoo qoreen kelmad kelmad ومقلسين tareeninka meeshaan ka bilaabeynaa اوكي ومقلسين دانييرو waxaa idin ka rabaa odayaasha cuslaada kuma jiraan dhalinyarada waa ragga asaagayga nala midka ah inaad bal aad soo macnaysaan heesta ereyada ku jira aadna nagula soo wadaagtaan aragtidiina youtube-keena Dami Films oo aad ka helaysaan barnaamijkan adinka idin diinayna wareysigan waxaan qaadayaa maanta iyadoo shalay oo 20kii January ay ku beegneed maalinta afka hooyo ee dunida waxaan halkan ila joogo marti ka socota Ishbaaya Uli soo dhow waxaan ku bilaabaynaa su'aasha ugu horeyso waxayna tahay meeqa af ay carruurta baran karaan ilaa 18 jir ay ka gaarayaan hagaag waxay baran karaan 5 luuqadood waxaana buugan aspekta ku haynaa tusaale qurux badan gabar ayaa 5 luuqadood si fiican ugu baratay ilaa 18 jirkeedii taasina waa tusaale toogan ma u fududahay carruurta afaf badan inay bartaan haddii ay jawaabtu haa tahay in laba af uu ilmaha ku koro waa mid aad u fudud carruurta ilaa 3 ilaa 4 jirkooda dhaqsi ayay wax u baranayaan 4 sano wixii ka dambeeyo waa sii adkaanay sababtoo ah falalka ama ficilada si sax ah uma rogrogi karaan waxaa fiican intay 4 jir ka gaareen way fududahay runtu way fududahay in labadaba lees waafajiyo afka Soomaaliga ay ku hadlaan luqadda ay dalka ay ku nool yihiin ay ku hadlaan labadaba waajib ay ku tahay leen dalkan waa ku nool yihiin luqadeeda inay bartaan muhiimadeeda ay leedahay ayagoon iloobeynin luqadooda Soomaali waxaa la isku waafajin karaa markay guriga joogaan sidoo kale hooyadooda inay la hadasho aabahooda inoo la hadlo حتى أخبارات كمان تخيبها في عن مركتي لو شدو يا لا شيء أي فير صدان لو شيء كي معناها دقن كاف وناكسن صومالي ده إلى ده هاي
waxyaabaha ay caanka ku tahay dhulalka Soomaalida la jecleysiyo macnaha qofka marka wadankiisa la jecleysiyo iyo meesha uu ka yimid luqadiisa waa jeclaana waxay noqonay masdar fakhr yani wax uu ku faano ma fahmay sida jinsiyada kala aan horba kugu soo xusay sida Turkiga iyo wixii lamid ah tan way ku hadlaan luqadoodana si talaaqay ugu hadlaan perfect ah taasna waxay ku xiran tahay marka hore inay waalidka labada waalid muwaafiq yihiin ay ka siman yihiin wax walbo ay caruurtooda u qabanayaan iskuul haday noqon leed caafimaad haday noqon leed noloshooda haday noqon leed iyo sharafka guriga siday u ilaalin luqadaada sharaftaada way marka muhiimad gaar way labada in la iswaafajiyo tabcan ilmaha maskaxa ilaahay si oo nadiif ah boqol luqadood waa lagu shubi karaa ayaga awooday u leeyihiin sideed luqadood inay ku hadlaan xataa iyo 10 marka taas wax barbaleen ma ka taagno laakiin waa in la baraafka Soomaaliga waajib way qofkan adiga luqadaada ayaa dadnimadaada ah qofka haduu luqad lahayn dialect lahayn dal ma laha asal ma laha meel loo cugsada ma laha sidaas darteed waalidka uu ku qasban yahay luqada dalka hooy ilmaha inuu baro kula hadlo kula sheekaysto markoo wax baranaa waxbarashada xataa ugu sharxo sida xataa anaga markaan yareen sida ogtahay sheeko xariir naftirkeed loo sheekay marka waajib muqaddas way xataa iskuulaadka dalkan aan ku noolnahay waxa lagu leeyahay luqadiisa hooyo waa inuusan iloobin uu bartaa tan waa inuu xoog saaraa labadood way isgarab socdaan wax kala haraya ma marka sidaas darteed ay xoog ku saarayaan sidaan qabanay aniga baa saari lahaa sheeko xariir هجرة ما دريتها هجران وين يا طبعا هي طبعا عليه طبعا عقلي بران وين كان هيك عقل بران هي هذا طبعا كنت راس إيري صغيرة إيري أوريها أولفا إبر هذا وين كان حصغرة إيري أو هيلك بوحة عيلا هيلك مدوق بوحة هذا مشي ويرو هيلك هذا مسي أنا وير كان أسكسوس هذا إيري هذا دعان كيس أسكسوس لوغا دوعة ليش دوعة خلي ويرك محور عمر إي بدل وبدل شيء أيه فبعد الربع المرة دوعري عليهم أبد برونا لراهي مركا لراهي لراهي أنت اللي كسوق المشكلة كبحة أنت ماشي كده اللي كسوق المشكلة كبحة أري هلا أبد بيستها ويرك يقول إيه أيه إي بدل واسكو بدلان أيه بيبر ويرك بيبرنا وسوكله صح مش قد كيس بيبرنا وقلنا صح ويست دوعة وكعقل بس ويرك هاي أول سؤال ما تنتهي بالضبط هاي بعد مقاعي مصطفى مقاعي مروة مقاعي عاشا مقاعي مصطفى ميك عيانا كلاس كشمات كلاس كشمات كلاس كافرات كلاس تفكرات kindergarten ها مادر حساب عليهم حساب حساب الطفولة ده هاي Deutsch und Mathe. حسابتي iyo afjarma هاي حسابته هي iyo Jarmarka jarmalada صح هذنا Lesen. ايه Lesen. akhriska ina akhriska jacayl ma هاي هي اسكول مرة جوتي kindergarten ماشي مع عروسة الواي مع جعشاب درخة ina wax xuquuqta jacayl ma هاي مصطفى marka weynaatid maxaa rabtaa inaad naqatid saynis kama jiraan aan aqraaqaa computer science inaad baratid aad rabtaa ay maxaa ku jeclaat marka computer science computerka inaan soo saaro oo iyo la sameeyo intaas ku jeclaa
ها marka ma ogtahay computer science iyo xisaab inay xiriir leeyihiin xisaab markaas si fiican u taqaan inaad computerkan ku fahmaanayso ها عليه سوفت وير عليه يو عليه حتى ملك دفتينا إنا عليه إنا كسب إسار توقتا حكو تلفين عليه تريك دي محمد لبرت على السكروفتو هذا صباح سبك أكو صباح هذا سوفت وير هاردوير مدقنا زين هاردوير ها هاي محاول هاردوير marka computer software waa computer banaankiisa oo macnaha marka banaankiisa isticmaalaysid hardware markii la furfuro systemka dhexdiisa maskaxda dhexda ku jirto markii la furfurayo kaas waa garyaqaan maasha allah maxaa ku jeclaatay inaad garyaqaan noqoto inaad Soomaalida ku caawiso sidaa rabtaa codkar ma tahay marka oo ma hadli kartaa markii waxaa la rabaa garyaqaan markaad tiid inaad qof hadli kartid ya maxaa jeclahay inaad doctor noqdo waxaa ku jeclahay dadka ilmaha dhibaataysan inaan caawisho aan jecesha dhaqtar inaan doctor keema qaliinka ma cabsanaysa miyaa laakiin qaliin dhiiga iyo ma cabsanaysa miyaa abtid ya hay artist farshaxan hay maxaa rabtaa marka inaad masawirtid markaa weynaa dadka inaad masawirtid hadda waxaad joogtaa Jarmalka markaa mustaqbalka weynaatid oo wax baratid wadankaaga maxaa qabanaya Soomaaliya horta Soomaaliya ina bisarawan wadada dadka u dhibaataysan kharo iyo adehe kuriyaasha oo halaysan naas sameeyo oo dadka masaakiinta oo banaanka fadhiyaan guri la siiyo oo meesha rabaan la geeyo inaan Soomaalida wax ka bedelo hay maxaa ka bedelay marka inaan dee u dhiso nolosha ku jiraan naga saar haduu ilaahay hay حاجة لأن سومر إنا تقو ومن إما أو يديس كا أو دوا تيسان أو غيره دوا حسنين يمكن أو تركه أو تركه إنا عاوي وتجارمت إنا نقول وتجار ملك إيسو وبينا إما كستو أنت مسمى كمان سفعنا خليتنا إسبيتال هنا ملك الاستدارة صح عليه بابورها وعليه من وين عندنا لسه بابورها لصوصارة ولصوصارة وصايا هذا ملك لا كسبلا واحد يكو عليه يكو عصبة لصوصارة أنا باورتها هلابين بابورها عليه محل اسمها عليه بر يو وحلا لك سماها كبار عليه كلا كسبلا ولا جاية نينجا مريا كبار عليه بابورها عليه رباط الوسماء بنا أو تسيان أنت سنة بسرعة سنة ترى يلا خمسة يحاولنا يا waxaa baratid rabtaa inaad ku caawisid maan ilmaha markaa Soomaalida maxaa masawir Soomaali markaa tid maxaa masawiraado yaanyuura masawir koob haye dad haye guri ma masawir guri haye haye Soomaaliya horta inta ku taala qaarad Afrika miya Europe miya Afrika haye Soomaaliya Afrika inta ku taala mtaqaan وقوي ميا بري ميا قلبات ميا وقوي على الكورة يعني وقوي وحواي نور بري أوستن أما إيست فيست سود كوفر أنت كنا أفر واي وقوي نورث وقوي واي سود كوفر إيست وحواي بري ويست قلبات بري Soomaalida waxa la idin carbinaya idin caawinaya calanka Soomaaliya ma taqaana soo eega kalarkiisa ma sheegi kartaa hay maxaa Soomaalida waxa la idin carbinaya idin caawinaya Soomaali Carabi ma loo hadlaa Ingiriis ma loo hadlaa Soomaali ma loo hadlaa
German maxaa looga hadlaa? Dutch. Ba ta ja ya le ana le ya le ada le ya le annaga le ba ta ja ho ho o iga ho ba ta ja ha